السلام عليكم أدير. وعليكم السلام أدير. كور حالة أدير. وفي عنا واحد يبين أدير. فوح أيان يبينيا وليبا فوح الدلكا. ما فوح الدلكا. أدير. كواسنا والمرجريسين. هو والمرجري. ما شاء الله إلهك وحفظ أدير. يا أدير أنا ما كاحشونيا horta aan ku ag fadhiistayso adeer wad wanaajisa dadka ka iibsada Soomaha adeer run ahaantii anigu waxaan ahay nin bilaa camal ah oo arday jaamacad ka baxaya jaamacad bad ka baxday adeer jaamacad baan ka baxay adeer familkeyguna waa iska danyar ma haystaan wax ay igu maalgeliyaan marka ilaahay baan tala saartay ilaahay baana markasta weydiistaa inuu faraj khayr qabaysiiyo anigu mid ayaan kaa doonayaa adeer laakiin waan kaa xishoonayaa waxaan doonayaa adeer waxaad iibinaysaa inaad wax iga siiso marka laga iibsado waan ku soo celinayaa lacagta adeer waa aadi adeer waan ku siinayaa waxba adeer lacag haysiin xoogaa ma ku siiyaa aad ku shaqaysato yacni diyaar waad u tahay inaad siiso adeer adeer saan arkay adaanay kugu filan baan u malaynayaa maya inankaygiiow waxaad tahay wiil jaamacad ka baxay oo weliba علشان إلههم بعد إرسق وديستها waxaa halkan isoo fadhiisiyey waa awlaadeyda dartood ويا درسيدان هربا kugu sheegay ogaa waxaan doonayay inaad siiso oo dabeetanaagtaada ku iibiyo sana anaguna irsiq ilaahay ugu weydiisto waa iska caadi inakaygiyo inta dootood kala bixi kartaa waayay haddaba badhna halka iga qaad badhna dhinaca kale iga soo qaad ka waran adeer say kula tahay weliba daagtaadan doonayay inaan ku iibiyo dhib male inakaygii haye haddaba iga soo wareeji halkan ii soo dhig ii soo gur intaasna adaan ku celinayaa laakiin hadal adoo xaalkaagu adag yahay maxaad ii caawinaysaa aniga wallaahi waan ka xishoonayaa inaan kaa qaato ilaahay baa faxra inakaygiyo qof kastoo daacad ah oo ilaahay ku xidhan ilaahay ayaa farash khayr qaba u furaya aakhiriya adduunyadaba inakaygiyo qofka ilaahay ku xidhan waxba ma waayo laakiinse mashruucu kan ka yar weyn ayaa kugu soo baxayay soo maaha way fiicnaan lahayd inakaygiyo mar kastana ilaahay ayaan ka baryaa waayuhu waa iska adag yahay inakaygiyo ilaahay wax khayr qabaa ku siiyo adeer waan kuu ducaynaya mar kasta allaha kaa raalli noqday inakaygiyo culays ayaan kugu soo kordhiyey soo maaha wallahi inakaygiyo si niyada ayaa laakiinse adeer igama xumaanaysa soo maaha haddii aan meel kale la tago saan ugu soo iibiyaa wallahi ka xumaan waayahay adeere laakiinse haddii wax faa'iido aan ka heli waayo iska ka cafifan koodhan lahaa oo lacagta ku socon waayo ku saamaxo aakhiriya adduun baa laga cafisheega tahay marka waxba ma soo raacanaysa soo maaha waxba soo raacanayo aadaan kuu haneeyey hay adeer aad ayaad u mahadsan tahay haddaba anigunaan ilaahay irsaaqad soo weydiisto aan soo iibsada alaabtaydan inta kaa dhacdayna balan kula ururiye dhowr xabaa kaa dhacay hay waad mahadsan tahay ilaahay ha ku xafido run ahaantii aabbahani waa aabba qalbi wanaagsan oo aad u naxariis badan bal eega intii ubadkiisa ugu soo irsaaqad tegay ayuu haddana aniga wax iga siiyey run ahaantii waa qof aad u wanaagsan aan odhan karo wuxuu mudan yahay in lagu daydo haddaba waxaan isku dayaynaa in aan ku noqonno oo aan ka farxinno siduu isaguba u nooga farxiyey u noqosho wanaagsan haye السلام عليكم السلام ورحمة الله أدر أدر معي inakaygiyo dhib male runaahantii werigaan hay waxaanan waday barnaamij dareenka dadweynaha lagu tijaabinayo wallaahi kadis baad nagaga dhigtay wanaaggaaga waxaan u qaadanahay ayuu noqday soo dhiib horta kartoonkiisii waa kan kartoonkaagii soomaad garan ugu horrayn su'aal ayaan ku weydiinaya maxay tahay sababta ad markiiba hore iga siisay sawdigaygu yidhi wiilkaygii arday jaamacadda dhigta ayaan ahay waad u baahday anugu waxaan ahay macnaha qof iska duruufaysan oo ubadkiisii usoo qofkii dhibaata haysuunba qofka kale dareemi qofka ay dhiba haysato ayuunbaa dareemi karaa qofka kale dhibaatadiisa qof ay dhibaata hayso haddii aad caawiso adigana ilaahay baa ku caawinaya markaan saa kugu yimi waan dareemay inaad tahay qof qalbi ballaaran leh dadkana u waa sidaa inakaygiyo dabeecadaydaaba noocaasa xitaa haddii aan lacag gacanta ku hayo ciddii u baahan uma diido yacni waxaad leedahay fooxan qof u baahanoon waxba haysan hadduu ku yimaado si lacag la'aan ayaad ku siinaysaa waan ku siinayaa intuu doono ayuu ka qaadanaya allah maxaa kaa wanaagsan haye haddaba ismaynaan baranay bal magacaaga ii sheeg adoo raalliya khaalid cabdow saalex maxamed maxaa kaa wanaagsan runaantii aad ayaanu kaaga mahad celinaynaa sida wanaagsan eed noo qaabishay imise carruur ayaad leedahay 5 carruur ayaan leeyahay maasha allah inamiyo gabdhawo isugu jiraa inama iyo hablabo isku ilaahay ha kuu barakeeyo
qoys dhammaystiran ayaad soo shaqo tagtaa haa marka miyaanay ku jirin in qaar waaweyn oo adiga ku caawin kara maya dhammaantooda wada yaryar waxbarashana way ku jiraan soo maaha waxbay bartaan dhammaantood marka wax kasta way u baahan yihiin adiga ayaa siiya haa wax kastoo u baahan yihin bahanigaa siiya karaantoontaa yararee aad arkayso dee ilaahay iga soo geliyaayo ilaahayna iguma qadiyo anigiyo ilaahay mooyaane cid kale waxba kama sugaan qof kasta farxaddiisa ayaa ka shaqeeya haddii aan gacanta ku hayo oo ay weydiiyaan waan siiyaa farxaddooda ayaanu noolahay way iska xaaladuun adeer noloshuba waa samiroo ilaahay tala saaro noloshuba waa samiroo ilaahay tala saaro ilaahay ayaa kuu gargaari doonaa noloshan tudhaantana wuu kuugu beddeli doonaa anigu mar walba ilaahay ayaan ku samraa wuxuu ii qoray ayaan ku samraa ilaahay hamigaaga ku rumeeya adeer aamiin inankaygiyo haye haddaba nebigeeni maxamed ku salli calayhi salaatu wasalaam tan imisa ayaad siisaa 500 500 oo riyaal haddaba imika tartan ayaan gelinaa labadeennu khaalidow haye haddii aad iga guulaysato abaalmarin lacageed ayaad helaysaa waan gartay laakiinse anigu haddii aan kaa guulaysto 3 xabbo alaabtan ka mid a ayaan kaa qaadanayaa waa si wanaagsan haddaan kaa guulaysto waxaasoo alaab ayaan iska qaadanaya qaado wax dhibaataa iguma haysaan ilaahay ayaad arrintaada u dhibatay waa sidaa haddaad guulaysato lacag ayaad waan helaysaa gartay tartankanna su'aala ayuu ku saabsan yahay laakiin bilay su'aalahaasi igu waad adkaada ka jawaabi kartaa kolley laakiinse anigu su'aalaha haddaan kaaga guulaysto 3 xabbo ayaan waan qaadanaya gartay bas haddaba su'aashu qaalidow su'aashu waxay odhanaysaa waxaad ii sheegtaa 5 magac oo ka mid ah magacyada nebiyada iyo rususha ilaahay waxba ma akhriyaba waxaa ma akhridid waxba ma akhriyaba maxaa haa yeelay markaad yarayd yaraanteedu waxba waxba ma soo soo baranaa baranba. ugu sababtan carruurteeda wax u baraayo ayaa taasa ma rabo inay sidaydoo kale noqdaan bal waay 3 ka mid oo nii sheeg magacyada rususha iyo nebiyada ka koowaad waa maxamed calayhi salaatu sala wasalaam allahu calayhi wasalam ka labaadna waa ibraahim calayhi salaam hayii ku soco saddexaadna waa muusa haa waka calayhi Calayhi salaam salaam. su'aashii koowaad waa uu ku guulaystay maxaad sugaysaan u sacbiya dee abaalmarintaad koowaad waa tan waana 50,000 oo riyaal adiga ayaa xaq u yeeshay laakiin 3 xabbo caadi haddaba dawdeer sidaan wada arkayno adeer khaalid wuxuu ka soo shaqeeyey kuuli maris gelin ayuu soo iibiyey iminkana wuxuu ka shaqaynayaa alaabahan yaryar ayuu iibinayaa maxaa yeelay ma doonayo qof bila'aadan ah inuu gacanta u taagto qof karaamo le anigu weeya shaqo walba iga soo horbaxdaa waan qabanayaa waayo qof bini'aadana intii aan bari lahaan haa lacagtii waxaa la loo odhan sii karaa garanaya dhabarka ayaad waxaa lee qaatay anigoo xooggayga maala oo carruurtayda masaariiftooda meel walba uga soo saaray reerkaaga u intaa masruufa wax kale iska daayo haddii ay laba dhagax dhexdooda iga gasho waan ka soo saaraya dhexda ayaanu xidhaa ilaahay arsaaqadaa ku waasiciya adeer aamiin biidni illaahi tacaala maalin waxaanu arki doonnaa adeer khaalid oo mashruuciisu u hirgalay oo dukaan furtay aamiin dhaha idinkuna adeer khaalid waxay tabada rabtaa dadku say Way dhammaan mahadsan u yihiin. jecel yihiin idinkana dhammaantiin waxaan idinka codsanayaa inaad adeer khaalid alaabtaa uu iibinayo ka iibsataan oo aad meheradiisaas u camirtaan run ahaantii adeer khaalid waa qof awood leh mudanna in lagu daydo qof bilaadana gacanta umuu taagan ilaahay mooye adigu run ahaantii waxaad tahay qof guulaystay adeer adigu ilaahayuunbaad baridaa inad mabriya gacantu ma taagto insha allah barnaamijkan dee barnaamijyada xiga waxaanu ka dhigi doonaa barnaamijka cabirka dareenka dadweynaha sidoo kale baraanki ayaa samayn doonaa laakiinse adiga kuguma sameeyo baraanki miyaan qaadi karayaaba waxyaalahaasoo kale anigu ma qaadi kara baraankii waxaa ma aqaan waxaan ku leeyahay ilaahay irsaaqadaa ku waasiciya adeer aamiin dhammaan arrintaa darteed like noogu saara sheerta sabskrayb xalqadanna meel kasta gaadhsiiya oo adduunka ka mid a haye haddaba adeer khaalid xalqaddu way sii dhammaanaysaa daawadayaashan macasalaamiinno macasalaami dheh maca salaama ciddii u baahan adeer khaalid lambarkiisa waxaan u soo dhigi doonaa kommentiga ugu horreeya ama descriptionka cid kastoo doonaysa inay caawiso ama ay garab istaagto sidaas iyo maca salaama ammaano allah